hotel race ee magaalada Boormaan ku sugannahay waxa caawa ka qabsoomayay bandhiga buuga gaftiid oo laga qoray taariikhdii Allah u naxariistay abwaankii weynaa ee Abwaan Cabdixakiin Qiiq waxa ka soo qayb galay fanaaniin siyaasiyiin abwaan ubax fahmo waxay kamid ahay fanaaniinta caawa ka soo qayb galay barnaamijka ubax ku soo dhawow telefishinka Somali News oo lagu horeey waxa ka warbixisaa inaad ka soo qayb gasho mudan noocan oo kala ah oo dib loogu xasuusanayo taariikhdii abwaan Qiiq Allah u naxariistay dareen noocyay ku lahayd wallaahi farxadayda caawa lama soo koobi karo farxad bay tahay in abwaanada dhamaantooda la wada xuso abwaankana dareen gaar u leeyahay waa abwaanka kaliya ee ka hadli jiray naftiisa iyo dareenkiisa ayuu ahaa farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo oo gurigiisa loo dhisaan oo ka qayb galay oo maxay tahay maalinta jigada liibinay ka qayb galay oo maanta buugiisa la furayaan ka qayb galay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay dadka dhintay uun xusina dadka intii nool yihiin waxa laga reebo dhamaantiin marka aad baad u mahadsantahay macaanteydii idinkuna dee la garab istaago oo fanaaniinta maaragtay yaa wixii laga qorayay wixii maaragtay laga hadlayaba garab taagnaada aad mahadsantahay aqoontaadu lahayd abwaan qiiq aad baan isku naqaanay weligayo ilaa macallin isagoo ah suugaanta tirinayo iyo aan fanba gelin ayaan anagu walaalo ilaahay ahay oo uu noo iman jiray oo uu noogu iman jiray meesha fanaaniinta kadib markaanu ka nimi maxay haytay Ethiopia Hargeysa nimi ayuu abwaan noqday oo de abwaan uu ahaayay uu noqday fanaaniintii galay suugaantiisa soo bandhigay helayna dad u hirgeliyo oo maxay haytay dabxay tawaasada mursal yurgeeyo hatra dhalinyaradii wanaagsaneyd naga dambeysay uu helay nasiib buu lahaa aad buu nasiib badnaa anin dareenkiisa ka hadli jiray naftiisa iyo waxa gubay ka hadli jiray buu ahaa Allah u naxariisto halana caruurtiina ogaada dhamaantiin garab istaaga waxbarashadooda idinka maanta maxay tahay u nool deesaasan idinku maartay ku tarlay nabi ayaa iyaduna kamid ahay fanaaniintii ka soo qayb galay caawa bandhiga buuga gaftiid fanaanadu hees kala dhaado Boorama oo abwaanku sameeyay madasha ka qaaday farduusa ku soo dhawow telefishinka ugu horeyn waxaad ka warbixisaa madashan mantii aad joogtay dareenkaaga wallaahi aniga caawa habeena ila mid tahay maba qiyaasi karaba caawa waxay ila mid tahay Allah u naxariista Cabdixakiin Cabdullaahi Jibriil aniga abwaankaygu ahaa muxuu ahaaye midda labaad aniga waa abwaankii Soomaali meel ay joogto abwaankii baray weeyaan heeskii uu ii dhiibay Boorame waa hees ka miisaan weyn 100 heesood oo la qaado marka aniga qasi qaasa waa abwaan qiimo iyo sharaf madax iyo mas'uulba la igu joogsado ayuu ii dhiibay Ilaahay raalli ka ahaado qabriga Allah u nuuro jagadiisii bixinteedina aniga wax daayir waan joognay aqalkii loo dhisayna waan joognay casuumaadii waan ka qayb galnay buugiis waan ka qayb galnay insha Allah biidmillaahi kariim tukaagna waan insha Allah waan ka qayb gali doonaa marka anigu caawa wallahi maba farxadayda ma qiyaasi karo farduusayno farxad anagu ka faa'iideysanayna TV-ga ana waraysanayna waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa hablaha qaaliga ah ee isxilqaamay ee gartay inay abwaaniintii u dhashay gobolka Awdal ay guriyo u dhisaan aqoontii maxay tahay garab galaan oo ilaa imika ka war hayaan garab taagan yihiin hablahan waxaan leeyahay hambaliyo ay banidi ku hambalyeynaya waan ku mahadsantiin inteeda noolna dad soo dhisayna hodan maxamed nuur faahiye oo naanaysteeda la yiraahdo ururiya waa gabadh halyeeyada waa gabadhii abwaaniinta u kacday guriga u dhistay abwaanka jagada siisay afguri hadana u dhistay buuga caawa qabaqaabadiisa barbay ka lahayd qof walba reer Awdal oo tabaalaysan way ka soo qayb gashaa marka waxaan leeyahay hodan maxamed nuur faahiye aad baan ku salaamayaa walaashay inta dhamaata Allah u naxariisto annagana bal il nagu soo eega aad loo garan og yahay waxay kamid ahayd abwaanada barnaamij ka soo qayb galay daalo ka waran aqoonta aad qiiq u lahayd Allah u naxariistay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Samira maxamed loo garan og yahay Samira daalo runtii caawa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay barnaamijkan quruxda badan wallahi qiiq wuxuu ahaa qof abwaan wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo soo dhaweyn badan intaan ka aqaanay muddo adigu waxaan isnaqaanay adigu ilaa 3 sano ku dhow intaan suugaanta tirinayay wuxuu ahaa nin wanaagsan buu ahaa sidoo kale waxaan kamid ahaa dadkii ku dhiiraday maalintuu dhintay in loo ururiyo taariikh ururin
inkastoo barnaamijkaasi uuna noo suurtagelin laakiin waxaan ka mid ahaa dadka inta badan aad u jeclaa inay abwaaninta reer boorama helaan taariikh fiican oo lagu xasuusto runtii barnaamijkaasi nooma suurtagelin laakiin aad waxaan ugu faraxsanahay in caawa barnaamij laga qoray aad iyo aadna waxaan u bogaadinayaa qoraaga buugga iyo ka soo qaybgalayaasha barnaamijka aad baan u mahadsantihin khadar maxamed diiriye oo bulshadu u taqaano abwaan abraar sidoo kalena qoraaga buugga daryeel naafo ayaa waxa ka mid ahaa martida barnaamijka ka soo qayb gashay bandhiga buugga gaftiid ee dib loogu xasuusanayay allaha u naxariistay abwaan qiiq walaal khadar soo dhawow ugu horeyn waxaad iga warbixisaa madashan inaad timaado dareenka ay ku lahayd bismillahi raxmaan raxiim walaal nastax aad baad u mahadsan tahay runtii ma soo koobi karo dareenkayga waxaan ka soo qayb galay buugga gaftiid oo laga qoray abwaankeenii weynaa alla naxariisto abwaan qiiq run ahaantii abwaan qiiq wuxuu ahaa qof wanaagga la saaxiiba ilaahay bay naga jeclaaday laakiin inaan taariikhdiisii xusno oon maxadanay maansooyinkiisii iyo wixii au dhaxal inooga tegay inaan xusno aad bay maxadanay u qiimo badan tahay waxaanu mahad celinayaa qoraaga buugga gaftiid samatar abshir oo isagu ku dhiiraday inuu buugga gaftiid au qoro oo inagu xasuusiyo abwaankeenii weynaa taariikhdiisii wallaahi dareen gooniya ayay aniga ii lahayd sida quruxda badan leh loo soo camiray sida quruxda badan leh ee looga warhayo maxadanay xaaskiisii iyo caruurtiisiina aad baan ugu faraxsanahay in guri loo dhiso keliya inagama mudna wuxuu inaga mudan yahay soomaalida waxaa ku maamaadaa ninkii magacaaga garanaya ayaa madqadaada koriya abwaanka alla u naxariiste qoyskiisa inaynu gacanta ku hayno inaynu mar walba xasuusnaano inaynu abwaaniinta kale alla u naxariistay afguriya ka mid yahay isagana aynu sidaa iyo si lamid aan isagana gacanta ugu hayno alxamdulilah rabbilcaalamiin aniga dareen gooniya ayay ahayd inaan buugga gaftiid ka soo qayb